waxaa lagu tilmaamaa qoriga ugu isticmaalka badan dunida uguna jecel yihiin mucaaradka iyo jawhadaha hubaysan adduunka sidoo kale waa qoriga kaliya astaantiisu ka dhex muuqato calaamada dalalka qaar sanadkii 2004 waxaa lagu tilmaamay qoryaha dunida yaala 400 milyan halka qoriga AK-47 kaligiisa uu ahaa 100 milyan oo qori ku soo dhawaada daawadayaal muuqaal aan ku eegi doono hindisihii qoriga AK-47 Mikhail Kalashnikov inkastoo lagu sharfay ictiraaqida qorigan ayuu hadan lacag aad u yar uu ka helay markii uu farsameeyay Mikhail Kalashnikov ayaa ku dhashay galbeedka Serbia 10kii November ee sanadii 1919 waxa uu ahaa qoys ka kooban 18 carruur ah sanadii 1938 ayaa looga yeeray inuu ka mid noqdo ciidamada midowgii Soviet waxa uu xirfadda uu lahaa ay qayb ka noqotay sidii loo hormarin lahaa hubka ay isticmaalaan ciidamada taangiyada hase yeeshee waxa uu farsameeyay qoriga uu caanka ku noqday ee AK-47 kadibna waxa uu weydiiyay askari ay saaxiibo ahaayeen sababta uu Ruushku u samaysan waayay qori la mid ah kuwa ay isticmaali jireen xilligaasi Jarmalku farsamaynta qoriga AK-47 waxa ay dhamaatay sanadii 1947 laba sano kadibna waxa uu noqday mid ay la qabsadeen ciidamada gaashaanbuurta Warsaw oo ahaa ciidamadii ugu horeeyay ee isticmaala qorigan 75 milyan oo qoriga AK-47 ah ayaa loo soo saaray intii u dhaxaysay 1994 ilaa 2015 sidoo kale 25 milyan oo isla qoriga AK-47 ah ayaa iyana la soo saaray iyagoo sanadkii 2004 qoryaha dunida yaal lagu sheegay 500 oo milyan oo 100 milyan oo kamid ah yihiin qoriga AK-47 waxaa si rasmi u adeegsada 106 dawladood oo dunida ah halka 30 kamid ah ay ku sameeyeen dalalkooda waxaa lagu tiriyaa hubka ugu badan ee sida weyn ay u adeegsadaan jabhadaha iyo argagixisada dhimashada uu sababo qorigan waxa ay laba jibaar ka badan tahay dhimashada ay sababaan madaafiicda iyo gantaalada askarigii hindisay qorigan waxaa la siiyay bilado badan oo ay ka mid yihiin Order of Lenin iyo Hero of Socialist Labor laakiin nasiib dar waxa uu ku beelay maqalkiisii tijaabooyinkiisii badnaa uu ka sameyn jiray qorigan Kalashnikov waxa uu diiday inuu aqbalo mas'uuliyadda dhimashada dad badan oo qoriga uu ictiraaqay lagu dilay waxa uuna ku eedeeyay siyaasadda dalal kale ee caalamka inay sabab u tahay dhimashada uu sababo qoriga AK-47 aad ay ii dhibtaa marka aan arko dad dambiilayaal ah oo ridiyay qoriga aan ictiraaqay ayuu yiri Kalashnikov sanadii 2008 waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah saddexda hindise ee ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad waxa uu dhintay Kalashnikov sanadii 2013 waxaana loogu sameeyay aas qaran wadanka Ruushka ma ahan qof ay dadku si fiican u yaqaanaan balse waxa hubaal ah in dadka ku nool dunidan barkood ay si fiican u yaqaanaan qoriga uu ictiraaqay ee 60kii sano ee la soo dhaafay ahaa qoriga ugu gumaadka badan caalamka adduunka